Trippier outswinger. Maguire, Kane rifles it into the. Because City are on a different plane. De Bruyne, Haaland, Curry, back for McTominay. Red letter day. He'll get another go, and he'll twist away from Ake, and Rashford scores. De Bruyne. Benny hit by Saka. What a wonderful, wonderful goal! Bruno Fernandes, beautiful! Bukayo Saka, Arsenal ahead! Rashford has rifled it in! soo dhawaada kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta adduunyada naga daawanaysaan halkan waa gacaltooyin show waa hoyga ciyaaraha caalamka oo dhan liiga kasta ilaa liiga Kenya kan Mozambique Premier League warkiisa Serie A Bundesliga dhammaan waad nagala socon kartaan fadlan soo dhawaada mar adaad asxaabtii hore kamid ahayd soo dhawow sharaf iyo karaama korkaada hadaad nagu cusubtahay fadlan like comment inta plus share nawdan okay maanta waxaynu ka hadli doonaa dabcan Premier League waa dhamaaday La Liga waa dhamaaday Calcio waa dhamaaday hadda iyo only FA Cup iyo Champions League baa haray oo dabcan labadaas hadda la ciyaari doonaa haddii ku horeyno kooxaha transferga ama koox walba waxay rabtaa inay isdhisto Haaland oo kala keento haddii ku horeyno kooxdii Chelsea ahayd Chelsea horta cuquba ku dhacday cuqubadii ninkii Ruushka ahaa ku dhacday Chelsea cuquba ku dhacday greedy oo kale noqdeen half a billion baa la galiyay lacag billion 500 kun baa la galiyay ilaa hadda xukuma soo saacada iyadoo hadda Chelsea ay rabto inay ninkii kaantaha ay diraan dhankaanta ku sii daameeraha shaqo u doono sidoo kale ninkii Kovac baa la dirayaa oo kooxo badan baan doonaya tan koobaad kooxda Arsenal ayaa aad u daneynaysa sidoo kale Pep Guardiola ama ninkii bidaarta weynaaye Real ka qaaday uu doonaya inuu ninka la soo wareego laakiin waa haduu tago kun Ilkay Gundogan haduu Barcelona aado ninkana lagu bedeli doonaa kaantana waxa rabta kooxdii PSG Francisca lagu gacan haadinay wax leeyahay kaalay war kale inay haya oo surprise ah waxaan la yaabay Arsenal muddo badan kama hadlay Arsenal baa soo gadan Arsenal inta ifka joogtay maanta ugu xumaayeen sababtay ugu xumaayeen way idin sheegaya Lukaku bay doontay Lukaku waxay dheen Lukaku waa striker ka dhiganana Arsenal ay inkaar ma inaga rabtaa walaalayaal inkaar ma inagu dhacaysa war Lukaku gas baa dhaama aniga halay dalbada lacag laan baan ku dheelay ilmaada Real Lukaku hadda faa'iido u leeyahay waa maxay war Lukaku faa'iido ma leena gaday Arsenal ilmaada Real naga daayay ciyaartii brankiga ilaa Dortmund oo ahaa Birmingham ee England u dhashay dabcan kooxda Real Madrid ayuu u dhaqaaqi doonaa siisa ka soo socdo ah 2023-2024 sidoo kale Sheikh Benzema Karim Benzema isna waxa looga gacan haadinaya wadanka Saudi Arabia kaalay Benzema soo dhawow si Arsenal baa jooga dabcan shaahigan cabiyaan ilaa waa yara xiiqi doonaa ninkii Benzema xagga looga gacan haadinaya Benzema waa socdaa wuxuu leeyahay Real ay nabaday inkastoo Real ay rabto hadii Benzema tago inay helaan Harry Kane kabtanka xulka England iyo Victor Osimhen oo ah ninkii Italia ama 32 sano ka bacdi u qaaday liiga kooxda Napoli labada nin bay replacement ahaan u rabaan haduu tago Karim Benzema oo dabcan Benzema aad iyo aad u doonayaan hadaynu halka kaga gudubno kooxdii la oran jiray Liverpool waa isdhistay McAllister waa keentay lambar 7 baa loo xiray bal waa aragnaa Liverpool dadka ku minguura Liverpool koox ma aha Liverpool anigu waxaan Liverpool iyo Arsenal iyo koox ma maskaxda inta yara taqaan xataa waa dhidid Grace Masa niga day Liverpool koox ma aha sidoo kale Arsenal ayaa hadda aad waxay u daneynaysaa inay la soo wareegto Lukaku waa warka xanka waa xantii ugu dambeysay aan idin siinayo aga oo Lukaku gaasaba dhaamay gaas ma Arsenal lacag ku gadato intay ku gadalaayeen sidoo kale ninkii kabiirkii aan anigu laftirkay taageeri jiray kooxda Arsenal PSG waa ninkii Messi ahaa dabcan isna waxa looga gacan haadinayaa Saudi Arabia oo wadanka Sacuudiga looga waxa la leeyahay ninkii khatarta ahaa Noimo baa la leeyahay kabiirka inkastoo PSG ay rabaan inay sii haystaan laakiin kabiirka inuu xagga aada laga yaabaa oo dabcan Sacuudiga la isugu tago isaga iyo Messi iyo CR7 iyo kabiirka tan kale hadda inii wado waxay tahay dabcan ninkii Firmino ahaa shaqalaan baa ku dhacday iyadoo Real Madrid ay rabto hadii uu Karim Benzema tago inay keenaan dabcan sidoo kale waxa jira ninkii Alvarez ahaa ee Argentina World Cup ka la qaaday wuxuu taagan yahay halay diro
أنا هالن بلا آدم ما ماشين ويا هالن بوسك كما عرسان كره هلا يدرو إسنا باير مونيخ بالوجا عن هذين يا تنقل هذا نقص عنه نمكي جو كانسيلا أها طبعا مان سيتي سكلا هيد إسنا إنجليز كوسو وجهاي أرسنال طبعا ولا غيا باكاس وإسكا وركا حنق السوق كتيرة kooxdii Arsenal ciyaaryahan badan bay rabtay maanaha waa soo ordaya ilaa Chelsea baan imaanaya ama kooxaha Ingiriiska shaqalaan adag baa ku dhacday sidoo kale kabtankii Bayern Munich waa Kimmich Joshua Kimmich isna waa soo ordaya sidoo kale waxaa jirta Man United baa Chelsea waxay ka rabtaa laba ciyaaryahan oo dabcan waa ciyaaryahan dhex ka ciyaaraya mid kale ninkii Declan Rice ahaana koox badan baa raba laakiin lacagtiisa hadda lama goyn karo 200 milyan buu marayaa 200 milyan aad iyo aad bay u badan tahay cid goynaysa male kooxdii Liverpoolna waxay socotaba hadda waxay aaday inay nafas ay ka quraabato maxaa la dhahaa Liverpool inay ka quraabato Wolves bay aaday oo nafas oo Portugal aad iyo aad u daneynayaan ileen ninkii xirnaaye Fabinho waa gaboobay Henderson waxba iska micin karo ninka competition-ka in la isla galaa la rabaa كرجوا بس طبعا وحاجة ترانسفيرني وواحد طبعا كوحدي تشيلسي هيدا بوتشيتينو واجبي شو فيليكس حوله كسيدا نيو اسكت سيدا أوكل وحاجة يريان كي استرايكر كي كوحدة يوفنتوس فلاهينوفيتش 8 مليون إلا غرة بكوحدة ما يونايتد أي كدورو يسو سيدا أوكل فرانك ديون آدي بحسين سا ما يونايتد لعكتي سنة مجوين كرتو بلوان إغنا سي حالة نقطة labadii nin Brazilian ka hana ninkii la cunsureeyay Neymar waxa laga yaabaa inay si surprise ku yimaadaan maxaa la dhahaa dalka Ingiriiska oo dabcan si surprise Man United ay ku yimaadaan free ah lacag la'aan ba ay ku yimaadaan way iska jiraan oo dabcan ninkii Kane ahaana iyo Osimhen waxa looga gacan haadinaya Old Trafford laba striker bay wada rabaan waa sheego kale laba striker iyagoo wada raba laakiin waxay ku xiyeen waxay leeyihiin waa inaan helaa labadan Osimhen ama waa inaan helaa Kane labadan mid ahaan waa inay helaan waa arki doonaa insha Allah xaaladdu say noqoto isbedeli doontaa kasoo yacyaca u shaaha iska cab shaaha lacab anu shaaha ku sheekeeyay isku soo noqdo wanaagsan asxaabta qaaliga soo dhawaada dabcan hadda waxaan ugu soo cusboonaaday war degdeg ah ninkii Caicedo oo ahaa oo u dheelayay Brighton waxa uu ugu dhow yahay 80% ilaa 90% inuu Arsenal u saxiixo sida ugu dhaqsaha badan saacadaha inagu soo aadan buu heshiiskiisu dhici doona ninkii Saliba ahaa ee ninkii Islaamka ahaana Arsenal mushaharkii waa u kordhisay waa qurxiyeen 120 baa loogu sii daray joog baa la dhaynaadeen meeshaada naga joog sidoo kale hadda waxaa jira transfer nagu soo kordhay oo dabcan kooxo badan baa raba inay ciyaaryahan la wareegaan kooxdii Liverpool Wolves bay aaday laakiin de ninkii Navas Barcelona waa rabtaa Liverpoolna waa rabtaa qofkii lacag bataa qaadan doona tan kale ay jirtay waxay tahay ninkii Joao Cancelo ahaa Ingiriisku ku soo socda Arsenal waliba dabcan Arsenal ilaa iyo hadda حبا كم مقطع أرسنال إنه هرانو شيء لوكاكو بهذا طلبنا لوكاكو هذا محو تريا قالتو يا بدر قالتو إنه بوسيانا لقاتي مشارلان كعياره تنقل جرت وحيد هاي كوحدي PSG هاي إلى هذا ويلق سميسا كبير كحولي عرب حن آذية يقولون ما أقول حلين كبير نوسي تشوك نايمر حلي وران ماشان وابليجو أفلقات دي إنجليز كيجان آذية لكن PSG ma qadi doonto labada ciyaaryahan kabiirkuna ma tagi doono halkaas uu sii joogi doona oo tan kale jirta waxa ay tahay Arsenal ciyaaryahan Caicedo waxay rabtaa inay ku bedesho ninkii Shaka ahaa oo Shako hadda Jarmalka u socdo dabcan wuxuu ku leeyahay Jarmalkaygan aadaya meeshaas uu sii socdaa oo dabcan dhankaas aan aadaya oo Caicedo nadii aduu yimaado Shaka de waxba uma yeelaan inuu iska tagaa fiican oo meeliisa uu shaqo tago tan kale jirto waxa ay tahay oo hadda inagu soo korortay ninkii Benzema ahaa caga badan kuma taagna wuxuu rabaa inuu saaxiibkiisa hore isku Real ahaayeen CR7 kula midoobo Saudi Arabia sidoo kale kabiirkii Messi ahaana waa ilaa iyo hadda isna caga badan kuma taagno oo waxa la leeyahay sax cusub baa jira saxna ma jiro oo dabcan bal waan eegnaa
Arsenal inkastoo iska tahay kooxaha noloshooda branki ay tahay oo dabcan branki ay ku nool yihiin sidoo kale bari oo jimcaha FA Cup-kii finalka haba jira kooxdii Man City iyo Man United ayaa wada dheeli doona dabcan inkastoo Man United 6 ciyaaryahan ay ka dhaawac yihiin Man City-na ay wada fid yihiin war jira backaaro imaan Guardiola sanadkan wuxuu taagan yahay koobka ana iskale wixii kala idinka inta la ninkii Harry Kane ahaa Maya Harry Kane Harry Maguire ninkii la oranayay oo Man United dheelay isagiina 10 milyan baa la siiyay ka sii dahwa la dhahay laakiin Man United iyaga khaldan because ninkaas iyaga bahdilay oo inuu u dheelo ma ahayn hadda 10 milyan buu qaatay waa ka sii daayay iska tagay bal waan eegnaa delay transfer ugu dambeeyay bal tan kale jirta waxa ay tahay hadda transferka ugu dambeeyay oo Newcastle iyana rag badan keensatay Newcastle Champions League bay ku jirtaa dabcan MBS na iska leeyahay boqorka Sacuudiga boqor Salman baa iska leh oo hawshu way socotaa Harry Maguire lacag baa la siiyay ka sii dahwa la dhahay war kala bay niga hayaan ninkii Jose Mourinho ahaa oo dabcan aan weligii koob laga qaadin barida dhulka xalay loogu dhuftay refereeyaashii hadda aflagaadeynaya cid uu deynaya male Mourinho waa dhiiqaystay dhiiqu loo dadka u gelinaya hadda biladii la siiyay qalinka hay taageero siiyay Mourinho nin waana way Mourinho asalkiisa nin Soomaali ahaa kooxda Arsenal anu horaan u sheegay Arsenal ciyaaryahan inay soo garato habeenkii xalahayd meelaha Afrika imaanayaan maxaa la dhahaa oo Nairobi Rwanda iyo ciyaaryahan 100 kuna ka gadanayaan marka ninkii la oran jiray maxaa la dhahaa Declan Rice bay aad iyo aad u dananaya laakiin aniga waxaan ogaa in laga qaadi doono ninkaas laga qaadi doono ninkii Chelsea iska lahaana long time project dheer ayuu kooxda raba inuu gaarsiiyo laakiin anigu horaan u sheegay kooxda Chelsea cuqubadii waxa haysa ninkii Ruushka ahaa baa haya oo odayga Ruushka markii laga gatay cuqubadiisa ku dhacday rifles it into the because City are on a different plane. De Bruyne, carried back by McTominay. Red letter day. He'll get another go, and he'll twist away from Ake, and Rashford scores. De Bruyne. Benny hit by Saka. What a wonderful goal! Bruno Fernandes, beautiful!